بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 373 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه، والحديث حسن. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت تاريخ الإسلام كي تهي سغالي لباطنكي بيشي شنات جماد الأولى سنة تكون أفر فرطانيو شن isla markaana waafaqsan 13 bishii 12aad sanadka 2023 waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray al-muntakhabu min saxiix sunan nabawiyya qaybtiisii al-fitanu wa ashraadu saaca ayaanu maanta gabagabaynayna insha Allah tabaaraka wa taala. xadiidkan waxa weeyaan waa xadiid xasana, wa in kaana culimadu ay qaarkood daciifiyeen, haddana xadiidku duruq buu ku soo arooray. xadiidkan maanta aanu qaadanayno waa min xadiid Anas bin Malik weey. sidoo kale wuxuu ku soo arooray min xadiid Sahal bin Sa'd as-Saa'idi, baasna ku soo arooray oo sanadkiisu uu nadiif yahay. kan Anasna sanadkiisa waxba ka jira oo nin liyaada Muhammad ibn Abi Humayd oo culimadu ay daciifiyeen waliba meel fog gaarsiiyeen baa ku jira. laakiin xadiidkan Sahal bin Sa'd xadiid nadiif weeyaan. ma aragtay Harun ibn Sa'id al-Ayli iyo Abdullah bin Umar Wahab يا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد، سند كان نظيفته ويان. إذا حديثكم مركا لسوقي وحديث حسنة. الشيخ الباني رحمة الله عليه سنن ابن ماجه سلسلة صحيحة هي غير كود وكحسنين هيا. سنن ابن ماجه والله بقول صدني يتضبوي سلسلة صحيحة أنا أكون صدق بقول صدني يلا بوي انت وكحسنين هيا. انت مركا نكون قد منه موضوع عن الفتن وأشراط الساعة وحديث كصدحية طبناد ويان كسو جبيننا وعبدان بانو حديث بدن بانو سو قادناي صدحية طبن حديث ويه oo ku saabsanaa muuminka dhiigiisa iyo xaraamnimadkiisa iyo xurmada uu leeyahay iyo fitanka ka fogaanshaheeda iyo qofka muslimka inuu samarnaba la min qariibin wala min baciid inuu samarnaba ka qayb qaadanin, adin uu soo qayb qaadanin, carab uu soo qayb qaadanin, dhaqaale uu soo qayb qaadanin. xadiidkan ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. xadiidkan wuxuu xambaarsan yahay laba arrimood buu xadiidkan xambaarsan yahay. dadku laba qaybood weeyaan, qayb saddexaad ma jirto. nabigu wuxuu noo sheegay dadku inay labada qayb yihiin. nin kastow adi naftaada dib u fiiri, labada qayb mid umaad gashay keed ku jirtaa. Anas bin Malik wuxuu rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam: inna min an-naasi dadka waxaa kamid ahaaday mafaatiixa, yani nacam halkaas waxaa ka xadfan innada isamkeedii. inna min annaasi dadkii waxaa ka mid ahaaday naasan weeyaan dad mafaatiixa lilkhayri khayrka fura u ah oo khayrka fura, magaaliiqa lishari sharkana xidha. waa qayb weeye. khayrka furay u yihiin, sharkana way xidhaan. khayrka way furaan, sharkana way xidhaan. qaybta labaad waa inna min annaasi dadka waxaa ka mid a naasan baa ka mid a nu qadaraynaa mafaatiixa lishari sharka fura, magaaliiqa xidha lilkhayri khayrka xidha. intaa markuu nabigu saa noogu cadeeyey muxuu ku gabagabeeyey: fatuubaa jannada ama sacaado iyo guul joogto ah ama geedka jannada intuba midkaa doonti ku fasir wuxuu u sugnaaday liman ruux jacala allaahu alla uu yeelay mafaatiixa alkhayri khayrka furihiisa calaa yadayhi gacmihiisa uu yeelay. waweylun halaag iyo cadaab liman buu u sugnaaday jacala allaahu alla uu yeelay mafaatiixa shari sharka furihiisana calaa yadayhi uu yeelay. ilaahay subxaanahu wa tacaala nagama dhigo kuwaas sharka furahooda laga dhigay. ikhwata alislaam waliimaan, xadiidkan waxaan u dooranay maadaama fitanka wax badan aanu ka soo hadalnay, waa miisaanka uu qof kasta iska dhexdayi lahay wey, issaari lahaa. nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu noogu cadeeyey dadkii labaa loo qaybiyey, mid saddexaad ma jirto. qof kastoo muslim ahow labadaa mid baad gelaysaa, mid saddexaad oo u dhaxeeya ma jirto. ama khayrkaad furihiisa tahay
oo sharka waad xidhaa ama sharka baad furihiisa tahay oo khayrkaad xidhaa labadaa midun baad soo geli idan ninka khayrka fura sharka wuu xidhi oo fitanka iyo dilka muslimka iyo waxaasoo dhan buu xidhi ninka sharka furana waxaa weeyaan dilka iyo dhaca iyo muslimka xadgudubkiisa uu furi khayrkana wuu xidhayaa wey marka nabigu wuxuu yidhi dadka waxaa ka mida dad baa ka mida khayrka furihiisa haya khayrka fura waa mafaatiix waa jamcu miftaax weeye mafaatiixa iyo mafaatiix bes labadu waa lagu jamciyaa yani jamac baa laga cabiray mafaatiix inuu khayrku badan yahay bay ku tusinaysaa oo khayrku meel yar oo cidhiidhi usaayna khayrku aad u badan yahay oo ninba qayb u furo marka dadka waxaa ka mid uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam dad waxaa ka mid a mafaatiixa furayaal waa lilkhayri khayrka waa magaaliiqa lishar sharkana xidha idan khayrka furihiisa waxay dhan miftaax luqada waxaa lagu leeyahay waa aalo tuftaxu bihi albaab waa aalo albaabada lagu furo wey oo ilkalo albaabada lagu furo wey saa darteed waxaa u noqdaa baa layidhi miftaaxaas marka furidaas ama shay macnawi uu noqon ama shay xisi uu noqonayo furitaanka ama shay macnawi ah ama shay xisi oo la taaban karo xisigu waa albaabada guriga la furahayo furaha marka saad u gelisi albaabka ku furmahay waa xisi waad furtay macnawigana miftaaxu salaati adahuur buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam salaada furaheedu waa dahaarada weeyaan buu waa macnawi weeye idan salaada in la furo wax xisi oo loo jeeda ma aho yani wax lagu gala weeyaan salaadii idan miftaaxu salaati adahuur buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam salaada furaheedu waa weyse qaadashada iyo dahaarada wey marka miftaaxu iyo furiddu xisina way noqon kartaa wax la taaban karo wax qarsoonna wax macnawigan way noqon kartaa marka nabigu wuxuu yihi dadka waxaa ka mid a qayb khayrka furihiisi oo khayrka furta sharkana xidha khayr bas intay furta iskama joogaysa sharkana way xidhi khayrkana way furaysaa ilaahay kuwa ha naga dhigo qof kastoo muslim oo u sacyo inaad kuwa noqoti waxaa kaloo nabigu yihi dadka waxaa kaloo ka mida dad baa ka mida sharka furihiisa oo sharka fura fitankay ka shaqeeyaan dagaaladii ogaan burburkay u horordaan fasaadkay u sacyeeyaan sharka ayay furaan khayrkana way xidhaan qaadkii buu daabulaynhayaa qaad buu laysan u qaatay hadda ninka qaad laysan u qaata oo qaad ganacsi u qaada oo mujtamac dhan qaad maaragtay u waarida oo u geeya ninka ma khayr buu horseeda mase shar wey laa shaka shar buu horseeday xoolahoodii buu ku duulay oo caafimaadkoodii buu ku duulay oo wuxuu ku duulay dhaqaalahoodii buu ku duulay oo nabadgelyadoodii buu ku duulay oo diintoodii buu wuxuu u reebtay male halkii iligoo qofka laga rido shareecada islaamku waa 5 halaad wey qofka bini aadamkaana 32 ilkood buu leeyahay ninka qaadicunka 32 ilkood buu cunay 32 ilkood 5 ku dhufo 32 5 lagu dhuftay meeqa weeye 160 halaad wey waa diyadii ninka ragga diyadiisu waa 100 weeye muslimka idan diyadii ninka iyo nuskeed ka badan wey yuu qabaa 10 ilkood ba 32 ilig ba ebera markaasuu tumanaya qaadka loo tumi oo murmursan sida neef xoola ilkuhu dhamaadeen mu murmursanaya ama qof waayeela idan ninka qaadka waarida ee qaadka dadka u geeya ama daraagiska geeya ama maartay ribada ama rishwada u horseeda waa mufsid weeye waa waxa weeyaan waa mafaatiixa shar weeye iyo magaaliqal khayr weeye waa khatar weeye marka dadka waxaa kamid uu nabigu yiri kuwa sharka fura khayrkana xidha nabiga ducadiisa dhageysta markaas nabigu wuxuu yiri jannada geedkeeda fatuba shajaratun fil janna waliyada saada abadiya yaani guul iyo wanaag iyo barwaaqo joogtaana waliyada iyo khayr joogta waxa u sugnaatay man ja'al maarta liman ja'ala Allahu mafatih al-khayr ala yadihi ja'ala maarta man ja'ala maarta liman ja'ala Allahu mafatih al-khayr ala yadihi idan ala maarta ja'alada waxa lagu gudbiyay ala macnaheedu waxa weeyaan bay dhan waxay dhimnisanta xumbaarsantaa bimaana wadacawi oo waxa la dhihi fatuba jannadi iyo geedaheedii iyo barwaaqadeedii liman buu ahaaday ja'ala Allahu alla uu yeelay ja'ala Allahu wada'a Allahu alla uu dajiyay mafatih al-khayr khayrka furiisa ala yadayhi labadiisa gacmood oo alla dajiyay oo dhigay khayrka furiisa baa ilaahay labadiisa gacmood uu dhax dhigay wawaylun halak
iyo jahannama liman buu u ahaaday jacala allaahu alla uu dejiyey mafaatiixa shari sharka furihiisa calaa yaday. uma baahno ikhwatii filaahi xadiidkan sharax badan uma baahno. labadaa midun baad soo gelaysaa. qof kastoo muslim ahow u fiirso, qaadka ninka dadka u geeya ama khamri u geeya ama mukhadaraad geeya ama hub dadka isugu dhiiba ama dagaalada dadka u horseedayo dagaallo u ooga ama dhaanta iyo fasaad iyo waxyaabahan u sameeya ama tiktok iyo fasaad dadka u hormara, wuxuu noqonayaa maqaaliiqa alkhayr weeyaan, mafaatiixa shari buu noqonayaa. sharka furihiisa wey, khayrkana wuu xidhahayaa. ninka laakiin masaajida dhismahooda iyo kitaabka ilaahay oo la weyneeyo iyo jaamacada islaam samayntood iyo alamru bilmacruuf wanaagoo dadka la amro, xumaatadoo dadka laga reebo, islaax daatilbayn dadka dhexdooda wanaag la dhigo, khayrkaa u sacyeeya, mafaatiixa alkhayr weeyaan maqaaliiqa lishar. idan la kala badi, ninba dhinac u badi wey. nin kastoo labadaa xisbi baa la kala noqday, xisbu mafaatixa alkhayri maqaaliiqa lishari iyo xisbun mafaatixa shari maqaaliqa maaragtay khayr ah. xisbi furaha khayrka ah sharkana xidha, iyo xisbi iyo guruub sharka furihiisa ah khayrkana xidha. labadaasaa loo kala baxaya. marka nin kasta oo ama rag ahow ama dumar ahow, labadaa guruub midkaad ku jirta adigu naftaada toos baad u ogta hadaada been u sheegayn. naftaada haddaada been ku maaweelinaynin waxaa weeyaan toos baad u ogtahay labada guruub midkaad ku jirta. kuwaa furaha khayrka haddaad tahay ood ku jirta alxamdulilaahi dheh, inaad daa'imtina intii mawdku kaaga iman hayaana ku dadaal. laakiin kuwaa khayrka xidha sharka furihiisa haddaad ku jirti hadda naftaada gaadh. alyawma camalun waqadan alxisaab wey. maanta waa camal, berrina waa xisaab wey. hadda naftaada hadday kula siman tahay hadda gaadh. hadday inta goorgoortahay ka soo bixi gruubkaasoo gruubka khayrka ku soo dar. ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tuso nuguna irsaaqa xaqa raacitaankiisa. halkaa maanta waxaan kusoo gebagabaynay mawduucii aan ugu magac daray alfitanu wa ashraadu saaca, oo dhiigga muslimka iyo xaaraamnimadkiisa iyo sida ilaahay u ilaaliyey iyo qofkaas inaan lagu xadgudba ayna bannaanayn iyo fasaad oo dhanba inuu qofka muslimka ka fogaado. axaadiistii ka hadlaysay oo ilaa 13 xadiis aan soo qaadanay, halkaasaan maanta kusoo gebagabaynay beeceenni iyo waxaan sii wadaynaa meeshii kale marka uu noo joogay. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tuso nuu irsaaqa xaqa raacitaankiisa. hal mar baan xadiidka sahal binu sacadna asna sidoo kale weeyaano rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina hada alkhayra khayrkan oo kana khazaa'inu waa khazaa'in iyo kaydad weeye. walitilka alkhazaa'ini khazaa'inta iyo kaydadkaana mafaatiixu furayaal baa u ahaaday. fatuuba janno iyo geedeedii barwaaqadeeda waxa u ahaaday licabdin adoon jacalahu llaahu alla uu ka yeelay miftaaxan furo lilkhayri khayrka ooga dhigay, miqlaaqan xidhid ooga dhigay lishari sharka mid xidha, waweylun halaagna licabdin adoon buu ahaaday jacalahu llaahu alla uu yeelay miftaaxan furo lishari ooga dhigay, miqlaaqan lilkhayri khayrkana mid xidha uu ka dhigay. idan sacad binu sacad xadiidkii sahal binu sacadna waa sidaas wey. ida kaananas way saxoojinayaan labaduba. hal mar baan xadiidka lafdigiisa akhrinayaa. alxadiidu 373 can anas bni maalikin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ina min annaasi mafaatiixa lilkhayri maqaaliiqa lishari wa ina min annaasi mafaatiixa lishari maqaaliiqa lilkhayri faduuba liman jacala allaahu mafaatiixa alkhayri calaa yadayhi waweylun liman jacala allaahu mafaatiixa ashari calaa yadayhi rawaahu ibnu maajah walxadiidu xasan. hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.